kulankan ay soo qabanqaabiyeen ardayda iyagoo ka baxday macadka Al-Furqaan ee shareecada Islaamka ee ku yaala gudaha magaalada Laascaanood iyadoo ardaydu ay ugu talagaleen inay ka faa'iideystaan ardada wax ka barata guud ahaan gobolka Sool kuwa dugsiyada sare kuwa hoose jaamacadda ku taala magaalada Laascaanood iyo dhammaan macaahidda barashada diinta Islaamka iyagu ku yaala gudaha magaalada Laascaanood dood cilmiyeedkan ayaa waxaa ka qayb qaadanayay guud ahaan culimada gobolka Sool oo ugu horeeyay Sheekh Cabdinaasir Xaaji Axmed Sheekh Saciid Axmed Cadar Sheekh Axmed Maxamed Suleybaan Sheekh Aadan Weli Cabdi Xuseen iyo culimo fara badan oo kale geesta kale waxaa iyaguna ka qayb qaadanayay gudoomiyaha jaamacadda Nugaal iyo gudoomiye ku-xigeenka jaamacadda Nugaal iyadoo halkaasi ardayda loogu soo bandhigay casharro kala duwan oo qiimo weyn ugu fadhiya sidii ardayda ay baran lahaayeen shareecada Islaamka iyadoo ay ka qayb qaadanayeen guud ahaan haweenka iyagu wax ka barta madaarista iyo guud ahaan goobaha kala duwan ee diinta madrasooyinka loogu talagalay haweenka ay si weyn uga qayb qaateen dowladan lagu baranayay barashada diinta Islaamka iyo kor u qaadisteeda iyadoo halkaasi lagu soo bandhigay casharro aad u fara badan markii dambana ardaydu ay si weyn uga faa'iideysteen kulankan ayaa wuxuu yahay mid xagaa kasta loo qabta ardayda wax ka barata guud ahaan gobolka Sool iyo deegaanada hoos yimaada sanadkan ayaa wuxuu kaga dugnaa kulankan iyadoo shirkadda isgaarsiinta Telesom ay ku rakibtay jaamaca weyn ee magaalada Laascaanood qaybtiisa sare qalab maqal iyo muuqaal kaasoo u sahlaya haweenka iyagu ka qayb qaadanaya muxaadaradaasi inay si sahlan u daawadaan iyadoo hore uu ahaa maqal quriya ayaa shirkadaasi waxay u sahashay inay si toos ah u daawadaan culimada iyagu ka qayb qaadanaya waxa halkaasi ka hadlay guud ahaan culimada iyo dhulka miyiga waa dadkiin waxa ka jira aqoon xubin aad fara badan iyo dhalinyarada inay xumaatay waxa arkaysaa magaalooyinka iyo tuulooyinka qaarkood dhalinyaradiiba waxaa tukanaya masaajid soo galaya waa hal iyo laba siwaa horeyaan oo waxa lagu jira waqtiga laga soo guuray inta kale waxay u fadhiyaan marka masaajid loo dareero daroogada u fadhiyaan iyo qaad u fadhiyaan gidaare ku dadkaasi mas'uuliyad inaga naga saaran tahay inaynu hanuuno ku baxno saasoo kale saddexdii bilood ee waqtiyada naqa sida waqtiga hadda oo kale waa weyn aan ku oday meelaha tagnay waxaan loo sheegay hawdkaas oo dhan iyo dhul badan kale dhalinyaradi macadka ka baxday qaar badan ee tagaan la marqaan la wanaagsan la balwaba inay xaadirooyin dowlad ay ka wadaan waa runtii horumar weyn oo soo kordhiyay ardada ka soo baxay macadka ay soo kordhiyeen ala in halka laga sii wado dadaalka la wado jazakumullahu khayran intaasna anu uga baxaya barnaamijka lagu faafiyo hay'adaha shaqada ay ku faafiyo وإلهي سبحانه وتعالى الله يشكرنا وذلك يرسل تيسا وأن سبحان الله يعني تعود وحنا الله باربعة إن الصنع مساجد كان الجامعة دولنا قطعي خيرات بدنا المسلم يجيبها إن ولمدرسة إمام مدرسة يدرك عنك حياة أي لا يسوي أنا كنت وقول في أحسنين دور داخلي هاي إن أنت الأخرى أي نوارد الشيء أقولتي وحبرشان من مجال العلم أو أمسحها أما وقت يسكولات وفرها عاتين إن جودي تعريف الصناعي يقالوا تقال وشيء مثل الدوري الدول أمض هالمركزة وحلقها دليل محل فكر الإنسان دايركو maxaa hanbiga ugu yahay maxay tiksanaysaa maxaa hor yaalla maxay ku fakaraysaa halkaas laga eega waxaad barataan inaad ku dhaqantaan oo laga keen akhlaaqda islaam inama al-umam bil akhlaaq ma baqiyat fa in dhahabat akhlaaqum dhahab ummaduhu
قيم كاللقية يقول اسمها كتاكنا وأخلاق أمد أخلاق ونكسر قيم به أولا وصول وعشون إيسا ويسكوبا وناك تقانا أمد أصابر كاسيجنك أمد أنا أخلاق هاي وفساد كشقيسا ولقوية كشقيسا أمد أصابر دعوة قدوية وأنا كنت طالبنا مكعشنا برميسا من أخلاق من الذكر ودينا يعدى قضايا ليسوى النبي الله محمد صلوات الله وسلامه عليه الله نقول إياه مركو رسولك أماني وإنك لعلى خلق عظيم وأتكو سبحانه أخلاق وين فكرك أتكو سبحانه والله سبحانه وتعالى رسول سكرين وهذا وإنا تسعدا أخلاق من دون أجسان وأن غطاء دنياتي في عيني يقول خصوك عظيم Somali Channel TV xarunta magaalada Laascaanood